السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعبد الناصر ديق oo maantana sidii caadada inoo ahayd insha Allah ta'ala halkan idin ka soo baahin doona barnaamijyadeeni ku saabsanaa arrimaha bulshada ee aynu ku qaadaadhigi jirnay waxyaabo fara badan oo kala duwan inta aanan barnaamijkeena maanta bilaabin waxaan si xishmad iyo qadarin la marka hore idin ka codsanayaa subscribe like and share wixii fariina iyo wixii wara iyo wixii wacaala ee aad haysaana waxaad igu reebi doontaan qaybta commentiga intaasi kadib waxaan idin hayaa maanta shanta qodob shanta tiir ee ugu muhiimsan ee ballaqa bluetooth-ka gabadha ama furfuro qalbiga gabadha bluetooth markaan leeyahay waxaan uga jeedaa qalbiga qof kasta oo bini aadana oo ilaahay abuuray bluetooth buu leeyahay raggu bluetooth buu leeyahay dumarkuna bluetooth ayay leeyihiin bluetooth-ka maxaa looga jeedaa waxa looga jeedaa qalbiga aadamaha sidaa daraadeed qalbiga ragga iyo qalbiga dumarka qof kasta oo ilaahay abuuray bluetooth-kiisa waxyaabo furfura ama tiirar furfura oo asaasiya ayaa jira bal markaa maanta waxaan idiin soo bandhigi doonaa shanta qodob ee ugu horeeya ee la yiraahdo ereyada iyo weedhaha furfura ama ballaqa bluetooth-ka haweenka ereyada iyo weedhaha furfura bluetooth-ka haweenka qodobka koobaad waxa uu leeyahay waan kugu faanaa waa ninka oo gabadhiisii ku yiraahdo waan kugu faanaa runtii waa tiir aad iyo aad u muhiima weedhani waxay tilmaamaysaa waan kugu faanaa waxay tusaysaa weedhani gabadha waxa ay tusaysaa weedhani oo taabsiinaysaa sida ay ugu guulaysatay nolosheeda waxay tusaysaa oo taabsiinaysaa weedhani gabadha sida ay ugu guulaysatay nolosheeda waxaanay u horseedaysaa in ay la timaado tabo iyo tilmaamo cusub oo sii taabageliya tubta nolosha ee ay u tafaxaydatay sidii ay meel ugu tiirin lahayd taasay u suurtogelinaysaa dumarkuna sidoodaba waxa ay jecel yihiin mar kasta in ay qaadaan tallaabo ka wacan kana toolmoontii hore sidaasay dumarku jecel yihiin dumarku had iyo jeer quruxda wanaagga ayay jecel yihiin tallaabo tii hore ee ay qaadeen ka wacan in ay qaadaan inay hore u sii socdaan inay horumar sii gaadhaan inay naftooda saygooda iyo ubadkoodaba kor u sii qaadaan bay jecel yihiin markaa dumarku waxay jecel yihiin had iyo jeer in ay hore u sii socdaan tartanka ay ugu jirto hanashada iyo hagidda himilooyinka togan ee nafteeda qoyskeeda ubadkeeda iyo saygeedu waa taagan u baahan tamar iyo tisqaad lagu taakuleeyo arrintaasi waa arrin taagan waa taagan yacni waa wax mar walba jooga oo u baahan tamar iyo tisqaad lagu taakuleeyo falka ay gabadhaasi ku tallaabsataa waxa ay tusaale u noqdaan bulshada ku xeeran oo ay ku yeelato dhexdooda tixgelin dheeraada ninku marka uu gabadhiisa ku yiraahdo waan kugu faanaa gabadhii waxay aaminaysaa ayoo isla markaba qalbigeedii iyo qulubteeda degayo oo gelaya in ninkeedu uu yahay nin daacad u ah aadna u jecel maadaama uu u isticmaalay ereyga waan kugu faanaa ereyga waan kugu faanaa ma aha erey fudud runtii waa tiir ka mid a tiirarka ballaqa bluetooth-ka gabadha yacni waxa weeye gabadha qalbigeedii baa automatically furmaya markaasaa waxa weeye maxabadii iyo kalgacalkii lamaanaha dhex yaallay uu sii kordhaya qodobka labaad waxa uu leeyahay qodobka labaad allaahumma salli calaa maxamed waxaa tahay gabadh caqli badan ma fiicno horta qofka in mar kasta hortiisa laga ammaanaa laakiin marmar waa lagama maarmaan in ay kaa maqasho gabadhu ereyo furfuro bluetooth-keeda oo ballaqa oo qalbigeeda waxa weeye iyo qalbigaagu ay isu furmaan oo ay kala qaataan daatada halkaa ay ku kala qaataan markaan leeyahay ay daatada kala qaataan maxaan u jeedaa waxa weeye labada qof ay isfahmi karaan oo qof waliba qofka kale waxa uu u jeeda iyo waxa uu dareensan yahay hadduu faraxsan yahay hadduu cadhaysan yahay hadduu murugaysan yahay haddii uu maanta bishaaro fiican soo helay qofka wejigiisa uu ka garan karo oo uu ka dareemi karo ama uu ka akhriyi karo ilaa ay heerkaa gaadhaan labada qof markaa qodobka labaad yaan taraarin wuxuu leeyahay waxaa tahay gabadh caqli badan waxaa tahay gabadh caqli badan gabadhu inay qurux badnaato waxa ka horeeya marka horeba inay caqli badnaato gabadhu inay qurux badnaato waxa ka horeeya inay caqli badnaato waayo gabadhu haddii ay caqli badan tahay waxay awood u leedahay in ay soo bandhigto quruxdeeda ama waxa ay soo saari kartaa quruxdeeda ayay muujin kartaa
haddii ay gabadhu caqli badan tahay quruxdeeday muujin kartaa, laakiin haddii aanay caqli badnayn waxaa laga yaabaa in xataa haddii ay qurux badan tahay quruxdeeda aanay muujin karin. caqli badnaantu gabadha waxay u suuro gelisaa in ay quruxdeeda soo saarto. marka gabadh lagu sheego caqli badnaan dadka badankiisu way aaminaan. marka gabadh caqli badnaan lagu sheego dadka badankiisii ama dadka intiisii badnayd ee ku xeernayd ama lalahayd maxaanku dhahdaye macaamilku waa ay aaminaan si lama filaana oo xaddaafa ayay u aaminaan oo u rumeeyaan warkeeda iyo wacaal hadba wixii kaga yimaada. kaasina waa tiirka labaad ee ah waxaa tahay gabadh caqli badan. waan kugu faanaa waxaa tahay gabadh caqli badan. erayadaa marka loo isticmaalo gabadha waxa weeye waxa furfurmaya bluetoothkeedii, waxa ka baxaya wixii nac iyo naxli iyo xiqdi ku jiray qalbigeeda ee ninkeeda ugu jiray ama saygeeda. waxa weeye waa nadiifin. waad aragtay haanta waa la culaa, haanta waa la culaa. haanta ma taqaanaa? haantu waa tacaanaha lagu lusho dhaqanka Soomaalida. waa la culaa haanta, markaasaa la cidaa. marka hore waa la hogeeyaa, mar waa la culaa ama waa la hogeeyaa, kadibna waa la cidaadaa. cidaadida iyo culayguba waxa weeye waxa laga sifaynayaa haanta wixii qashin iyo qashaabiir ahaa, bakteeriyadii iyo qurunkii baa laga sifaynayaa. aaladaha casriga ah ee sida kombiyuutarka oo kale waa adiga arkay, waa la formaat gareeyaa. formatin macnaheedu waa maxay? waa la culaya. qalbiga gabadha iyo qalbiga ninkuba culay bay u baahan yihiin. culaygoodu waa maxay? waa in bluetoothkooda la culo oo la sifeeyo, oo laga sifeeyo wixii qashina, oo laga sifeeyo wixii xun, oo laga sifeeyo wixii hadal xunxumaa ee dhex maray. qodobka saddexaad yaan taraarin aan ku soo dhawaado. garaantu markay halkaa batorinayso ayaa qodobka saddexaadna waxa uu ina leeyahay sideedu aragtaa arrintaa. ninkii gabadhiisii wuxuu ka talageliyey xaajo, gabadhiisii wuxuu ka talageliyey arrin u timid. wuxuu yidhi sideedu aragtaa arrintaa. gabadha marka laga talageliya arrin ama amuur xal loo raadinayo ee lagu yidhaa sideed arrinkaasi uu kuula muuqdaa, maxay amuurtaasi kuula eg tahay? waxay dareentaa milgaha maamuuska iyo qadarinta ay ku leedahay bulshada dhexdeeda. kalsoonideeda iyo dadaalkeeda ayaa sii kordha. waana sababta ay weedhani u jeceshahay in ay maqasho gabadhu mar kasta iyo meel kasta. arrintaa ka waran, maanta waxaasaa ila kulmay, maxaynu arrintaa ka yeelnaa? arrinkaasaa inoo yimid, sidaynu ka yeelnaa xaajiyo, sidaynu ka yeelnaa gacaliso, bal hadda ila tali, bal arrinkaa wax ka dhe, ka dhiiba fikirkaaga. yacni waxay dareemaysaa gabadhii maadaama aad fikirkeeda ka weydiinaysa wixii arrin ahaayee idii yimid in ay ku tahay agtaada qof qaaliya. dabeetana qalbigeedii baa furmaya, bluetoothkeedii baa furmaya. bluetoothkeedii ayaa labadiinii bluetooth baa isu furmaya ama labadiinii qalbi ayaa isu furmaya. qodobka afraad wuxuu leeyahay waxaa tahay hooyo fiican. waxaa tahay hooyo fiican. waxaa tahay hooyo fiican. waxaa tahay hooyo fiican ama waxaad noqon doontaa hooyo fiican. haddii ay hadeer leedahay caruur leedahay oo ay dhashay matalan gabadhu, waxaad leedahay waxaa tahay hooyo fiican. haddii weli aanay curaninna waxaad leedahay waxaad noqon doontaa hooyo fiican. labadaba maxaa waa weedha afraad ee ka mida weedhaha furfura bluetoothka gabadha. weedhani waxa ay ka mid tahay weedhaha farakuturiska ah ee ciyaarsiiya ruxa ee jiif iyo joogba u diida qalbiga gabadha. waa mid carinaysa dareenka harraadan ee hooyanimada ee ku abuuran gabadha. inay noqoto hooyo dihata korisa, in ay noqoto gabadhii hooyo dihata oo korisa oo kaalin gelisa ubad. waa dareen guud oo haweenka ka dhaxeeya. waa arrin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu haweenka jacaylka hooyanimadu guud ahaan uu ku abuuray. xataa waa adiga arkay iyadoo yar oo ilmo yaroo ciyaalo aan 10 jir gaadhin, had iyo jeer waxay sidataa bal maxaanku dhahdaye ilmo yaroo caruusada ama waxyaabihii yacni waxay had iyo jeer muujinayaa dhaqankeedu in ay tahay hooyo. caruusad yaroo gabadhay ku ciyaaraysaa ama caruusad yaroo wiila ilmo yaroo kale ah. waxyaabahaasay had iyo jeer samaynaysaa gabadhii yarayd ee inanta yarahayd. marka qodobka afraad waxa weeye waa in uu ku yidhaahdo ninku waxaad noqon doontaa hooyo fiican ama waxa aad tahay hooyo fiican. qodobkaasina aad iyo aad buu u muhiim yahay, waayo gabadhu had iyo jeer waxay ku fikiraysaa oo hamigeeda uu yahay in maalin maalmaha ka mida ay noqon doonto hooyo. waa yool ay higsanayso, waa meel u calaamadsan oo ay ku fikirayso ama ay ku hamido in riyadeedaasi maalin uu rumoobi doonto.
qodobka shanaad ee gabagabada haddii aan ku soo dhowaado wuxuu leeyahay waan ku jeclahay noloshayda inta ii hadhayna waxaan jecelahay inaan agtaada ku dhammaysto. yaa salaam, waa erey aad iyo aad u qaaliya. intaa marka ay gabadhu kaa maqasho waxaa la hubaa in maxaanku idhaahdaaye uu qalbigeedu si fiican kuugu furmayo, in isfahamkiinnu uu soo dhowaanayo, in xataa haddii aad ahaydeen laba qof oo mararka qaarkood isku taagtaagan oo iska hor yimaada, in aad si fiican oo wanaagsan aad isu fahmaysaan. waan ku jeclahay haweenaydu markay maqasho weedhan waxay garwaaqsataa oo qalbiga gashataa inay tahay waslad qaaliya oo la'aanteed aanay noloshu suurtogelaynin, oo aan laga maarmaynin, oo aanay noloshu heer gaadhayn. sidaa daraaddeed weedhani waxay albaabada u furtaa adduun cusub, weedhani waxay albaabada u furtaa nolol cusub oo ay galaan lamaanuhu, oo ay gabadhu in badan ku riyoonaysay in ay maalin uun halkaa gaadhi doonto. waxaan ku soo koobayaa maanta insha allahu tacaalaa barnaamijkeennii ahaa ereyada iyo weedhaha furfura bluetoothka gabadha ama haweenka. 5 qodob baan ku soo koobayaa, 5 tiir ee aasaasiga ah. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.